بسم الله الرحمن الرحيم. قصة تتاركا وإنه ولكو جرنو قيبتي أيغو قوليسانيين وإنن قادين قوبه يغا جبكودو كبلاب ميي waxaynu ku soo dhex jirnay dawla al-Ayyubiyya ama Salaaxudiin al-Ayyubi rahimahullah dawladii ballaadhnayd ee uu ka tagay ee dabeetana googo'day filqantay ee qaybaha tirada badan noqotay iyo markaa tataarku siduu ula dhaqmay kolba meel uu ku duulayay qolada kalena ay daawanaysay inta qoladaasi la cunayo ama la laynayo ay u fududaatay markaa hoolakaya ciidankiisii inay maalin walba koox ay weeraraan kooxaha kalena ay meeshooda joogaan waxaynu ugu dambayso aynu soo marnay maya faarqiin magaaladii la odhan jiray ee dagaalka gashay alkaamil maxamed al-Ayyubi oo la jebiyey oo aynu nidhi magaaladaba xisaar baa lagu sameeyey dadkii wuu madhay gaajo iyo xanuunno u madhay آخركي مقالدي باي سو قالين محمد الكامل باي سو قبتين دبتنا waxaynu nidhi tacdiib baa lagu dilay waa la torture gareeyay inta la xidhxidhay ayaa hilibkiisa la googooyay kolba in la cunsiiyay markii uu dambeeyayna madaxay ka gooyeen dabeetana madaxiisii bay qaateen ilaa iyo magaalooyinkii dhulkay sii marayeen oo dhan madaxii kaamil oo lagu sido waranka lagu sitaa la marayay ilaa madaxiisu uu ku gabagaboobay inay dimashq la galaan xalab iyo xamaa iyo xamas waxaasoo dhan waa la dhaafeen sidii madaxiisa loo siday dadka loogu bajinayay ayaa maxamed alkaamil al-Ayyubi madaxiisii waxa la geeyey dimashq waxay culimada taariikh tilmaamaan xataa dimashq albaabka laga soo geliyay baab al-Faradis albaab la yiraahdo laga soo geliyay baa la yiraahdaa dabeetana aakhirkii meel masaajid lagu aasay imika masjid ar-ra's baa loo yaqaan masaajidku ninka madaxda ahaa uu ku aasay masaajidkii madaxa la yiraahdaaba halka hadda xabaasha waa markii uu miya faarqiin ka takhalusay buu wuxuu bilaabay inuu haddana boqor yar oo kale agtiisa jooga oo magaalo Mardin la yiraahdo haysta inuu weerarka ku qaado Mardin markuu weerarka ku bilaabeen sidii caadada u ahayd wuxuu u diray ergey ama rasuul waraaqihii tahdiidka ahaa iyo digdigta ahaana sida waa loo wargeeyey rasuulkii waa u yimi warkiina waa u sheegay meesha waxaa xukuma al-Malik Saciid nin la yiraahdo wuxuu jawaab ku soo bixiyey jawaab ah waan dagaalamayaa laakiin sababta dagaalka ku kaliftay inay ku qoran tahay وحلي كنت قد عزمت على الطاعة والحضور إلى الملك لكن حيث أنكم قد عاهدتم الآخرين ثم قتلتموهم بعد أن اطمأنوا إلى عهدكم وأمانكم فإني الآن لا أثق بكم وإن القلعة بحمد الله تعالى مشحونة بالذخائر والأسلحة ومليئة بالرجال الترك وشجعان الكرد وحكوك بقبي hore waxaan ku tala galay buu yiri inaan boqorka u imaado oo aanu hogaansamo laakiin waxaan arkay buu yiri cidii idin hogaansatay ee idan aqbashay iyagana inaan layseen oo idan amaano iyo ahdi toona lahayn sida daraadeed kalsooni ma qabaan kuugu imaado ee waxaan ku sheegayaa qalcadaydu rag iyo xoolaba waa buuxdaa oo rag tiro badan oo Turkiya iyo geesiyaashii Kurdida ayaa ii jooga buu yiri dagaal baaran ka xiga imaatinkaaga holaako ciidamadiisi waxay bilaabeen inay go'doomin ku sameeyaan muddada ay go'doominta magaalada tan ku hayeen ayay waxay bilaabeen inay qabsadaan magaalooyinkii yaryar ee u dhawaa oo magaalooyin caan ah fil islaam aamud baa ka mid ah xaraam baa ka mid ah raha baa ka mid ah iyo suruuj iyo magaalooyin qalcado yar oo kale oo tiro badan intaas oo qalcadood oo yaryar ee magaalo markuu qabsaday oo ay magaalada tanina ugu jirto xisaar ayuu wuxuu go'aansaday inuu dib u yara dhigo
dagaalka magaalada tan oo xagga Xalab u socdo laakiin inagu qisada saynu soo raacino magaalada aynu israacin doona magaaladan xisaarkii markuu muddo ku jireen ayaa waxa geeriyooday boqorkii magaalada xukumayay الملك سعيد magaalada xanuun baa ka dilaacay dabeetana wabaagii xanuunkii meesha ka dilaacay ayuu ku dhintay inanuu dhalay waa الملك المظفر la yidhaahdo ayaa dhaxaltooyadii qaatay inankii wuxuu bilaabay isagu inuu gorgortan galo hoolaaku xidhiidh la sameeyey gorgortan buu galay hoolaaka nin buu u soo diray koohday la yidhaahdo koohdaygii waxoogaa baabay iska wacwacdiyeenoo wuu islaamay ninkan boqorka ah walaashiina waa la siiyey walaashiina wuu u guuriyey waxaanay aqbaleen inay dowladdii isu dhiibaan waxaa la yidhi boqorku waa inuu tagaa hoolaako oo waftiya uu soo baxay ramadaan baa la yidhaahdaa buu soo baxay isagoo hadiyadihii iyo wixiina sida boqor hoolaakuu yimi wixii baa loo gudbiyey hoolaaka markaa wuxuu ku yidhi niyow dhegayso waxa ay soo gaadhay muusilkii haystay carruurtiisii inay baxsatay oo xaggaa iyo masar ay u baxsatay muusil waa badrudiin lu'lu waa kii ugu xaggan safkan ugu xigayba yacni xisbu tataarka qoladii ka tirsanayd weeyaan hoolaaka wuxuu leeyahy waxay soo gaadhay ninkaa carruurtiisii inay baxsatay oo ay qabteen meesha la yidhaahda masar waxaanan u malaynayaa un asxaabtiisii la socotay inay sababtay carruurtiisu inay baxsato ee waxaan kaa raba adiga waxa weeyaan inaad soo kaxayso asxaabtaadoo dhan dabeetana aad aniga agtayda kaga tagtid waayo idinma aamini karayo inay hadhow intay wax kugu akhriyaan idinna aad baxsataan oo masar qabataan wuu keenay asxaabtii iyo wixii oo dhan dabeetana waa la fasaxay haddana wuxuu ku yidhi hoolaako may waxa ay asxaabtaadu ii sheegeen inaad xagga hoose masaarida kala socotid waxaanan iigu muuqataa inaan kugu daro cid kaa mancida inaad baxsato waayo shakigaa weli waan qabaa asxaabtii lakeen ninkan baa u haysta madax furasho haddana wuxuu leeyahay adigu haddaad noqoto keligaa waan ka cabsi qabaa inaad baxsatid markaa cid kalaa lagugu daraya nin la yidhaahdo axmed boqa ayaa la yidhi baa ku-xigeen kuu noqonaya oo magaalada maamulaya amiir adigana maardiin magaaladaadii waanu kuu celinnay nin fiican baa tahay weliba waxaan kuugu daray magaalooyinka kale ee nasiibiin magaalada la yidhaahdo iyo khaabuur iyo dhul badan oo ka mid ah diyaaru bakr aamudaynu soo sheegnay iyo alkaamil magaaladiisii ama meeshii caasimadda ahde miya farqin intaba adaan kuu wada dhiibay buu yidhi oo madax ka wada noqonaya dhulkan kale weli baanu qabannay qaybo ka mida qarqas meesha la yidhaahdana adigaan madax kaaga dhigay marka saxaabadaadoo dhanna waad ka tegaysaa ninkanina wuu ku raacayaa iyo isagaa meesha kula maamulaya mamlakadaadiina waan ballaadhiyey oo intaasoo dhan baan ka dhigay buu yidhi hal waxun baad yeelaysaa buu yidhi markaad magaalada ku noqoto waxa laaliya waxa qalcad iyo burji ku yaalla waad duminaysaa lama ogola dee askar iyo ciidamo iyo waxaad isku adkaysaa inay dhacaan ee waa inaad baabi'isaa wixii qalcada meesha ku yaalla markii uu ka dhaqaaqay ka tegey ayuu wuxuu isugu yeedhay 70 odaygii aabbihii ahaa asxaabtiisiiya oo lagaga tegey dabeetana wuxuu amray hoolaako 70kaba in la dilo odayadan duqaytida in laga wada takhalluso wax dembiya oo ay geysteenna ma jiro laakiin meesha dowladnimadu inay si fiican uga muuqataa baa la rabaa mardin waxay noqotay dowlad ay ka taliyaan nimanka la yidhaahdo tataarku waxaanay noqotay imaara caskariya oo bartamaha ku taalla
oo Suuriya iyo dusheeda Suuriya inta ka sarreysa iyo intan Kurdigu dega Turkiga ka tirsan iyo Anadol qayb inahaasoo dhan xukunta oo ay ka talin karaan horuu socday markaa wuxuu bilaabay magaaladii Xalab loo oran jiray iyo dhankeedii inuu kaco Suuriya markaa waataynu nidhi dhankii saxaaraha inuu ka galo wuu ka baaqsaday wuxuu bilaabay inuu ka soo galo dhanka waqooyi Xalab oo wax yar u jirtaba xuduudda Turkiga maanta uu leeyahay ayuu ka soo bilaabay waa 10 al-akhir waa 10kii ugu dambeeyay Dhulxijja 657 hijriyada ama 1259 miilaadiyada November bay ku sheegaan meelaha ku beegnayd ciidamadii magaaladan joogay waxa haysta Tawran Shah nin la yiraahdo Tawran Shah waa nin waayeel oo gaboobay oo kuwan meelahan xukumo dhan adeer ugu beegan Naasir kan Dimashq xukumo waa adeerkii waa odayadii hore ee muslimiinta ahaa buu ka mid yahay Tawran Shah wuxuu qaatay inuu dagaalamo magaaladan aanu isagu dhiibin magaaladu markaa wixii ay xusuun lahayd way diyaarsatay dagaal bay u diyaar garowday Xalab inay dagaalanto ciidamada ka mid ah magaalada laga soo saaray magaaladu waa magaalo aad u dad badan oo caasimadii dalalka muslimiinta ugu waaweynaa bay ka mid tahay Dimashq iyo marka laga reebo bay leeyihiin iyo Baghdad gadaasheed Xalab waa magaalada saddexaad baa lagu tilmaami karaa mantaqadaasi tira ahaan dadku uu degan yahay waxa la sheegaa ciidamadii muslimiinta qaybo ka mid ah inay dabadda u soo baxeen meel dabadda ah baa la isku helay ciidamada dabadda u soo baxay dad badan oo iska xamaasadaysan oo dadkii magaalada joogay baa soo dhan raacay cawaamtii iyo suuqadii ka mid ahaa laakiin markii ay arkeen ciidankii tataarka iyo tirabadnidiisa ayay dib u noqdeen oo magaalada dib ugu noqdeen ciidamadii muslimiinta intii soo hadhay oo dabadda meel magaalada horteeda ah ka samaystay dhufaysyo iyo goobay ka dagaal galaan ayaa tataarkii ku soo baxeen weerarkii koowaad baa la isku yaro qaaday tataarku way u jabeen dib bay ugu yaaceen laakiin ma ahayn jabay jabeene xeelo dagaal ciidankii badnaa inta meel damba la dhigay ayaa qoladani u baqa carartay waa eryadeen hal saacad bay sii eryayeen goortii magaaladii laga soo durkiyey ayaa dhan walba laga galay dabeetana intaasi madaxa laga guray magaaladii bay soo duldegeen magaaladii square baa laga qabtay ama waa la go'doomiyey Tawran Shah ninkii la odhan jiray isagu wuxuu qaatay inaanu marnaba dagaal mooyaane wax kala aqbalaynin 7 maalmood bay magaaladu go'doon ku jirtay isku dayeen inay Tawran Shah la hadlaan magaalada wararkii baa soo galay ah in maxaa la yiraahdaa miya farqiin in la qabsaday in madaxii kaamil la sito in waxyaabihii dadka niyad jabka ku ridayo dhan baa lagu akhriyay xisaar magaalada god bay ku soo wareejiyeen markay god ku soo wareejiyeen ayay kadibna derbi ku sii dul dhiseen si aan magaalada cid uga bixi karin kadibna waxay bilaabeen 20 manjaniiq madaafiicda culus bay u rakibteen waa la garaacay caamadii magaalada ku jirtay markii garaacistiina ku badatay xisaarkiina adkaaday 7 maalmood xisaarkaasi ay ku jiraan ayaa tamalmul dhacay ay leeyihiin waraysi dhiibno malaaysi dhiibkaa la qaatay Tawran Shah waa diiday inuu isdhiibo caamadii badh ka mid ah magaalada albaabadeedii u furtay waxa la yidhi waa isdhiibaynaa anagu sidan kusii jiri mayno waa la soo galay markuu arkay in magaaladii la soo galay ayuu ciidamadiisa wixii aqbalay buu ka haystay qalcad magaalada ku taala ayuu Tawran Shah la galay magaaladii Xalab oo albaabada loo furay ayuu soo galeen atrak ma he tataarki wuxuu fasaxay hoolaako muddo 5 maalmood wixii dhaqaaqayeen madaxa laga jaro 5 maalmood baa magaalada seefta laga dhargiyay dumar iyo carruurtii waa la soo ururiyey taariikhyahanada qaarkood waxay yidhaahdaan
sabyiga carruurta iyo dumarka la qabsaday 100,000 way gaadhayeen baa la yidhaahaa yani magaalada kasaafadeedaad garan kartaa dumarkii iyo carruurtii ay qabsadeen 100,000 oo qof dadku gaadhaya ayay qabteen laakiin wuxuu faray inaan la dilin wax kiristana waxay kaloo sheegeen guryo gaara dad galay iyo kiniisadii yuhuudda iyo mala axzaab hoosta kala socotay tataarka farmaano gaara dadka loo jarayo meelaha wixii galayna kontaneeyo kunoo meelaha galayna waxa la sheegaa in la yidhi hala nabadgeliyo magaalada inteeda kale waxa la amray in dhulka lala simo dayrkii magaalada iyo suwaarkeeda in la baabi'iyo masaajidda qaar in la dumiyo wax walba in la qarribo qalcaddii hoose tooraanshaah iyo ciidamadiisu galeen ayaa go'doomiskii lagu bilaabay muddo bil ku dhowaada 4 toddobaad markii ay go'doomin ku jireen ayay qalcaddiina xoog ku furteen oo albaabkeedii jebiyeen odagiiyo aad u da'a towraanshaah nolol bay ku qabteen wixii kale ay layn karayeenna way leeyeen towraanshaah waxaa la yidhaahdaa isaga may dilin way qabteenuun maxay u dili waayeen taarikhyahanadu sababo badan bay sheegaan imaam almaqrizi isagu wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu dhaawac weyn qabay ama inuu xanuunsanayey waayo maalmo kadibba wuu dhintay taarikhyahanada qaarkood sababo kaley sheegaan qaar baa yidhaahdaa odaygan geesinimadiis iyo ninnimadiisu ka yaabay oo wuxuu yidhi ninkii odayga hayo holaako war ragga allama laayo ninkan ha la daayo laakiin taarikhyahanada qaar baa waxay leeyihiin holaako nin raganimo ku daayo horeba looma arage wuxuu ka lahaa bay leeyihin dana kaloo siyaasiya oo ah kow xukaamta kale magaalada joogta inayse soo dhiibi karaan waa odaygoodiyo dee adeer buu yahay kan dimishq oo dhan iyo meeshoo dhan isagu madaxda ka wadaa maca xalabtan la qabsanayo kan haystay kan ashrafka jooga xumus jooga waxaan oo dhammi waa isku reer marka odaygooda marka la qabto ee aan la dilin waa fatxu albaabi lilaakhariin bay leeyihin madaxda kalena inayse soo dhiibto dee odaygii horeba lama dilinay laakiin waxaa la yidhahdaa odaygani maalmo markii la hayay kadibba wuu geeriyooday isagu ilaahay u naxariisto meeshii la odhan jiray waxa u yimi alashraf alayuubi xums ninkii madaxda ka ahaa oo hambalyaynaya holaakona wuxuu yidhi nin wanaagsan baa tahay xalabtan aan dumiyeyna adaan kuugu daray xukun taadii hore iyo xalab isku darso koox tataarkiina wuu kaga tegey meelihii u dhadhowaa qalcadihii ku yaallay siba qalcad xaarim la yidhaahdo oo ilaa 50 kilomitir magaalada u jirtay weerarka ku qaadeen muddo kadib dagaal markuu cabbaar dhacay iyana waa qabsadeen wixii ku jiroo dhanna waa laayeen markan waxaa ku hadhay waxaan badnayn shaam oo dhan naasir yuusuf oo aan magaaladiisii labaad ee adeerkii joogay difaacin ee le difaac waxaan kaga jiraa dimashq duleedkeeda iyo waxoogaaga u haystaa u hadhay wax ciidamaa ou dagaal la geli karo halkan markuu marayey ayuu mu'tamar qabtay holaako mu'tamar abaalmarina waxaa la abaalmarinayaa dadkii iyo geesiyadii dowladda tataarka taageeray ee ku taageeray inay si fudud dhulkan muslimiintao dhan u qaban karaan laakiin mu'tamarku wuxuu ku salaysan yahay xasba ru'ya tatariya alqutb alwaaxid dunida la rabo inuu ka taliyo waxaa yimi markaasi oo bogaadinta ka qayb gelaya oo dee dagaalkana kula jiray maalan armeniya boqorkeedii haytham waxaa jooga antakiya boqorkeedii bohmand asaadis bohmandiyiinta kuwii la odhan jiray kii lixaad waxaa jooga salaajiqadii ama turkidii muslimiinta ahayd labadii boqore xukumayey kekawskii labaad iyo qalaj arsalaan araabici afraad waxaa la siinayaa markaa mukaafa'aat abaalmarino xoolihii iyo khanaymtii dee xalab laga furtaa la isku abaalmarinaya xalab xoolo badan baa laga helay laakiin qaabka abaalmarintani u dhacaysa waa qaab cajiiba nimankan maalan
armeniya kan boqorka wahe haytham waxay dhahdaan waa ninkii dumiyey jaamicii weynaayey magaalada xalab markii magaalada la burburinayay isaga iyo ciidankiisa ku soo baagmay isaga amar ku bixiyey in aljaamic alkabiir masaajidka weyne magaalada in la dumiyo isaga wuxuu siiyey xoolo badan markii uu siiyey oo abaalmarina ayaa haddana waxaa loo yeedhay labadii nin ee madaxda ahaa ee muslimiinta ka socday ka kaws athani iyo qalad jarsalaan araabic waxaa la yidhi idinku kow waxay yeelaysaan magaalooyinka xukuntaan iyo qalcadaha aa leedihiin qaybo ka mid ah oo ay muslimiintu hore u furteen waxaa ku wareejisaan boqorkii armeniya haytham waa nimankii la socday wax la dagaalka kula jiray ayaa dhulkoodii qayb ka mida waxaa abaalmar loo siinayaa armeniya boqorkeedii la socday si armeniya boqortooyadeeda ay u ballaadhato oo xaliif istaraatiijiyo xooggan u noqdo qoladanna abaalmarkoodii kaasuu noqday in dhulkooda qayb laga qaado oo loogu daro armeniyiinta in loogu daro abaalmarkii saddexaad ayuu wada bohmand oo antakiya gobolka la ydhaha ka tirsan turkiga xukuma ayuu u yeedhay isagana wuxuu yidhi adigana abaalmar waxaan kuu siiyey madiinatu laadiqiya laadiqiyadan suuriya ku taallo magaalo muslima ah oo waa dhulku salaaxaddiin alayuubi ka qaaday nimankii masiixiyiinta uu ka furtay oo islaamay oo dad muslimiina markaasi ah ayuu yidhi laadiqiya adiguna antakiya ku darso waa qaacidada caankaa bay yidhaahdeen ee isticmaarka labadan qodobee dambe waa qaacidadii caanka ee isticmaarka oo isticmaarka waxay dhahdeen almuxtal yucطi maa laa yamlik liman laa yastaxiqu bay yidhaahdaan koloniyada mustacmarku waxaanu lahayn ayuu cid aanu xaq u lahayn siiyaa ingiriiskii soomaaliya yimi ee askarta ka dhigtay ee ay dunidao dhan kala dagaalameen ilaa iyo bermo kala dagaal galeen markuu soo noqday muxuu abaalmar uga dhigay gobolladoodii inuu ina etoobiya siiyo inaynu kenya ku daro kenya xaquma lahayn etoobiya xaquma lahayn laakiin waxa weeyaan muxtalka waxaa qaacidadiisu tahay yucطi maa laa yamlik liman laa yastaxiq waxaanu lahayn buu cid aan lahayn siiyaa nimankii la soo dagaal galay ee maantao dhan taageerayay dhulkoodii waxaa lagu kala daray antakiya amiirkeedii bohmand iyo amiirkii kale ee xukumayay armeniya ayaa laba qaybood la kala siiyey laakiin isagoo wax bixinaya ayuu haddana tusinaya alqutb alwaxiid inuu yahay maamulaha koowaad aan dee dunida laga daba hadli karaynin sidaa daraaddeed qaraar afraad oo cajab badan buu soo saaray qaraarka kani labadii amiire uu wax siiyey buu cagsigooda yahay kii antakiya iyo kii armeniya ayuu qaraar cusub u sheegay qaraarka kani wuxuu sheegayaa inay iyana yaqiinsadaan taabicinayiin niman daba socda dowladda weyn inayiine inaanay ismoodin xaliif xooggan oo dee wax mudan qaraarkani wuxuu sheegayaa markaa waxaan beddelay buu yidhi kiniisaddii bariga ee idinka xaggiinna ka telin jiray wadaadkii haysayna waan beddelay wadaad cusub baan magacaabayaa buu leeyahay hoolaaka iyo kiniisad maxaa isaga dana laakiin amar buu soo saarayaa inuu beddelo kiniisadda antakiya ninkii haystay inuu beddelo isagu kristan maaha kiniisadda antakiya waxba laakiin yaa lagu beddelayaa bal cajabtan kala dhegayso qaraarkani wuxuu sheegayaa madhabka bohmand iyo haytham madhabka ay haystaan sheekh aan hayn baan kiniisadda u dhiibayaa buu yidhi iyagu waxa weeyaan kiniisaddan ay haystaan waa kiniisa sharqiya waa orthodox iyagu kuwa kani waa yacni batririk iyagu waa catholic romanan baa looga taliyaa antakiya romaniya looga taliyaa waayo kiniisadda ninka jooga genewa baa laga soo diray marka horeba waa talyaaniga ayaa laga diray waa nin catholicah dee protestant dunida markaa ma jirine waa catholic baa jooga iyo kiniisa sharqiya orthodox laakiin
بطريرك يونانية أو كنيسة شرقية كتر سمو انتو سوق عاضي أيو كنيسة دي كاثوليكا هيدي رادقا مضحكا وقرضا كريستان كانوا وحرباين وشيغو مع دينتي نينو يساقوا حكمه مع دينتا كريستان كويني هولاكو هوستي مادو ومذاهب تانية كنيسة دهن هي وحل شيئين وحبك تشيريني نوال بحالكو كو قراون إنو أرمكو كو صعده والدوليسي والدوليسانية مركا بغركي أنطاكية يا أرمينيا كتالينيي intaa markii uu kala xukumay ee kiniisadiina uu dhiibay wadaad Greek ah oo ka tirsan kiniisada Orthodox-ka uu madax uga dhigay oo uu tusiyay nimankan xajmigooda dhabtii wuxuu yahay ayuu wuxuu bilaabay markaa waayo waa dawlad dee Kuuriya ilaa iyo Poland bay ka talisaa dawladda tani Kuuriyadii China kedeeda ahayd ilaa iyo Poland bay dawladdan ka talisaa dawlad lala murmi kara maaha waxa bilaabmay markaa mandaqadii ku hadhay ee Dimashq ahayd iyo weerarkeedii inuu bilaabo ciidamadiisii uu kaxeeyey wadcigii Suuriya iyo koonfurta Turkiga markii ay degtay ayuu socod bilaabay Hamaa ayuu soo maray madiinatu Hamaa كدبنا مدينة حمص نواميشي وهيستي خاينكي الأشرف الأيوبي أي ساقا ناصر كواها إلى يسيدي ولكل ملها دمشق وقاري لها حما حقتي دمركو صوص عدان وليسو قارين أي غير حما تشادين وحالله يسكر راعي أقاقار كما انتانو إيمان وفتي إن لديرو وهلكو تشوغو لوغو يفرها reer xamaa waxay dhaaheen muranka iyo rasuul laynoo soo diray iyo arrimahaas baan ka hortagno magaaladii waa tashatay wafdi min al-acyaan baa la diray furihii baa loo dhiibay hoolakaya ciidankiisii aan weli meeshaba soo gaadhin una soo dhoweyn ayaa la yidhi wafdigan baa ku doonaya waxaanay sidaan furihii magaalada Xamaa bas furaha keena buu yidhi si uu qolyaha kale ayna furaha u keenaan ayuu wuxuu yidhi idinka ammaan xaqiiqiyaan idin siiyey magaalada Xamaa la yidhaahdo lama taaban karo oo see loo odhanaya wuu iska dhaafa markuu Xamaa dhaafay ayuu Xums tegey Xumsna dee Ashraf al-Ayubi baa jooga walba isagu xisbigan ka tirsan waa ka sii tallaabay wuxuu u sii socdaa Dimashq markii uu ku soo socdo balandhanka kale eegno ninkii berigii hore yidhi inankiisa u diray ee lahaa kaalay Masar ila qabo ee markii la yidhi adigaaba iman waaye isaga la maagayna Masar u cararay ee yidhi ninkii Masriga ahaa kaalay oo ila difaaca ee jihaadka iclaansaday ee Xama ilaalin kari waaye halkan ag degay Dimashq ag degan bal Naasir Yuusuf iyo ciidankiisa aan dib ugu noqono ناصر يوسف waxa soo gaadhay warka odhanaya ninka isku reerka hayeen inta la dilay in madaxa laga jaro madaxiisa la sito lagu la soo socdo isaga Maxamed al-Kaamil madaxiisa deewal la siday ilaa Dimashq baa lagu aasi doonaa magaaladii ma farqina in la qabtay maxay sameynayaan markaa waxa bilaabmay shir in la isugu yeedho madaxdii dawladda oo dhan baa isu timi boqorkan baqayaana waa la jooga cabsidu ma aha tataarka dhankiisa iyo xoogooda ee cabsidu waxa weeyaan adaf al-asaasi dadkan niyad ahaan bay u jaban yihiin iimaanka daciifay waxa la yidhaahdaa la shiro madaxdii uu ka mid yahay ra'iisul wasaarihii wadanku al-Amir Zaynuddin al-Hafidi ayaa yimi Zaynuddin al-Hafidi kana waa ninkii uu ka digay Maxamed al-Kaamil oo lahaa warkaasi khubus buu ka dhigi doonaaye taladiisa hayeeleen isaga iyo Badruddin Lu'lu waa nimanku lahaa shirka la soo wada fadhiistay shirka waxa kale oo ku jira Bebros Ruknuddin Bebros al-Bunqandari Bebros wuxuu ka mid yahay al-Mamalik al-Bahriya nimanka ay qisadooda iyaga dib baan ka sheegi doonaa Masar dawlad askara baa hadda ka jirta dawlad Ayubiya waa la inqilaabay dawlad military baa ka dhisan oo niman mamaalika la yiraahdo military ahaan jiray baa qabsaday
وممالكته أسكرته ويس قبتين جننا دودي وينا نكمده وركن الدين ببرس اللي يدهده ayaa ninkii meesha haystay isqabteen waxoogaa yaroo ciidan uu la soo baxsaday wuxuu joogaa markaa Dimashq ninka kan oo ka tirsan markaa ciidamadii masaarida ayaa isagu jooga magaalada Dimashq ah shirkii markii la galay Nasir Yusuf oo hadlay iyo warkiisii waa niman madaxooda qurbanaya yaadu waa madaxda maanta caalamka islaamiga ka talisa oo Mareykanka maxaynu ka yeelaa ka tashanaysaa يعني مريكان oo inta yar xukuma ninkan holaaka u xukuma marka aw ka talinaya Korea ilaa iyo Poland baynu inta ka dhaxle ayuu ka taliyaa maxaa la yeelayaa baa la isweydiinaya waa la hadlay warkii baa batay waxa hadlay oo muuqanaysa inaanu Nasir Yusuf xagga dagaalka u janjeerin waxa kale muuqanaysa حزب التتاري دينو ماشي كل حجره زين الدين الحافظ أيا هضلي وحكى هضلي إن منك التتار كا يد حوق جود يد ولد ويسيدويين يسي خطر تويين وحكى هضلي المسلمين تا يتبرد الرضا دي ضعف جود يسي مشكلة دو هيسطه وحوت المامي مركا بغرق وقتك كان وقتين ودقالمي كرنينانه وإن ممكن جهات إعلامية مركي هوري وقتك كان وقتين ودقالمي كرنه إن أنا يهين halka markuu warku maraya baa la yiri buu Ruknuddin Bebrs xanaaqay dabeetana waxa la yiraahdaa nin aad diin ugu qiiraysan uu ahaa oo cadhooday oo caytamay oo kan Zaynuddin al-Haafidiga kana caayay oo taariikhyahanada qaar baa waxay yiraahdaan cayda iyo cadhada iyo waxa soo dhan boqorku uu la jeedayay kan waa sii marinayay inuu dareensiyo mowqifka uu taagan yahay si kastaba ha noqotee wuxuu u tilmaamay waxaas wax la aqbali kara inaan ahayn marnaba dad muslimiina baynu nahay wadankii islaamka oo dhan nimankani waa soo qabsaday ciidankii ugu xooga badnaa adiga haysta dagaalano tala kale ma taale laakiin Bebrs wuxuu ka dhex hadlayaa dad geeriyooday innaka la tusmi'u ilaahay quraanka muxuu leeyahay innaka la tusmi'u al-mauta wala tusmi'u summa ad-du'a idha wallaw mudbirin dad geeriyooday buu la hadlayaa looma dhegtaagin markuu arkay inaan cidi u dhigtaagin buu iska baxay baa la yiraahdaa go'aankii meesha ka soo baxay muxuu noqday القرار هو الفرار madaxdii go'aana bay qaadatay in la baxsado waa madaxdii dhammayd ee jihaadka iclaamisay ee ciidanka Dimashq hortiisa dhigtay ee holaaka ku soo socdo qaraarkii ka soo baxay wuxuu noqday maxay in la baxsado الأمير ناصر يوسف وابحصدي ومرضي كلا وابحصتي عيدا كي واكلا فردي مقالة دمشق والبابدو فرينا الشعب كيدي وحيدي شوغان وهدنا الجهاد الإعلامي يهولاكي عيدا كي سيا صاصعده أي الله كلا ضريرة ركن الدين بابرس نركا أركي قضيته هالكي مريسو وحقاقسي watay buu iska kaxaystay oo ka baxay wuxuu qabtay Falastiin dawladdiisii horena waa dawladdii ay isqabteen oo ka soo cararay laakiin xal kale ma hayo waraaq buu dirtay wuxuu la hadlay Quds janankii ka madaxda ahaa markaa Masar wuxuu tilmaamay mowqifkii muslimiintu meeshu marayo wuxuu tilmaamay markaa diyaar inuu yahay inuu ciidanka dib ugu soo laabto askarta muslimiinta kamid ah inuu noqdo dagaalkaana inuu dib wax ugu hogaamiyo tataarka lala galayo waa nin dagaalyahana waa ka soo warrami doonaa waa ninkii jabiyay ama dagaalyahanadii ugu waaweynay jabiyay xamlaadkii saliibiyiinta gaar ahaan waa raggii Louis-kii sagaalaad gacanta ku soo dhigay Louis السابع فرانسيسكا مدحوينهooda waa ragii soo qabtay buu kamid yahay waa nin janan oo macruuf ka ah ciidamada muslimiinta ah marka kana wuxuu dhex joogaa kooxdaasi qaraarka qaadatay in la kala yaaco kadib Falastiin markuu tagayna wuxuu codsigaasi u dirtay inuu dib u la heshiin karo ninkii madaxda ka ahaa Masar
ninkii madaxda Masar ka ahaana wuu aqbalay soo dhaweyn fiican buu sameeyay ciidanka halkaagii baad ka bilaabaysaa madaxdaadii baad noqonaysaa waa waqti muslimiintu u baahan tahay dagaalkaaga iyo farsamadaada Bebrus markaasi dib wuxuu ugu noqday Falastiin buu dib uga baxay wuxuu ku noqday isagu markaa Masar si uu soo abaabulo uga qayb galo ciidamada muslimiinta ee Masar degan iyo dagaalada ay la gali doonaan kooxdii kale meeshan tagtay waa kala yaacda markay kala yaaceenna Dimashq oo albaabadu u furan tahay ayaa waxa soo galay ciidamadii Holaako Dimashq aan madaxi joogin oo military joogin oo ciidan joogin oo waxba joogin oo jihaad iclaansatay ayaa waxa soo galay Holaako iyo ciidankiisii maxay ku sameynayaan markaa Dimashq shacab aan dagaal u diyaar garoobin dagaalami garanaynin askartii muxtarafiinta ahaa ay ka yaaceen waa mowqif aad u cajiib ah shacabkii baa isu tegtegay waar maxaynu yeellaa baa la yidhi warkii xamaana wuu soo gaadhay waar haatan inanaan furaha la cararraba yidhaahdeen sidii xamaa intaynu ka hor tagno aan furaha geyno iyana furihii bay soo qaadeen in yar oo ciidamadii ku soo hadhay baa yidhi waar anagu yeeli mayno waa iska dhimanaynaa intaanu fura sii sidi lahayn kollayba nala dilayo waa dagaalamaynaa qalcad yaroo magaalada ku taalla bay galeen shacabka intii kalena waa israaceen furihii bay qaadeen waxaa loo keenay Holaako markii uu Xamaas siinayay nabadgelyada dhabta ah malihiisii waa u xaqiiqoobay maxay in furayaasha kuwa kalena keeni doonaan aanu dagaal iyo dhib la kulmi doonin Holaako oo gacanta ku dhigay furayaashii Dimashq markaasi asaan magaalada soo gaadhin ayaa war cusub soo dhacay warkan cusub wuxuu sheegayaa boqorkii dawladda Tataarku inuu geeriyooday boqorkani waa walaalkiisii ka weynaa ee Manko Khan loo odhan jiray Holaako wuxuu soo arkayaa nin dhalinyaro ah isagoo 8 jir uu dagaalka soo bilaabay marka kan dhowr iyo 40 jir maraya waa nimay boqorka hore walaalayiin waa ninkaa qabsaday akbar caasima fi alcaalam ciidanka jabiyey watay ee Baghdad gacanta ku soo dhigay haddana alcaasima athaniya lilmuslimiin caasimadii labaad ee muslimku uu yeesho gacanta ku dhigay oo Dimashq ah labadii magaalo dunida markaa ugu waaweynaa waa Dimashq iyo maxay iyo Baghdad ee caasimatul umawiyiin iyo caasimatul cabbaasiyiin labadaba gacanta ku soo dhigay wuxuu isu dhigayaa markaa inuu madaxweyne noqon karo wuxuu amar ku bixiyey in ciidamada wuxuu u dhiibay nin hogaamiyaashiisii sare ka mid ah oo Katabqa Nawiin la yidhaahdo oo isagu kiristana laakiin Mongoliana ayuu madax uga dhigay isna ciidan buu dib u kaxaystay wuxuu ku socdaa markaa Qaraqara inuu tago caasimadii Mongolia oo qaabkii dhismaha dawladoodu u dhisnaan jiray waxay ahayd inay nimanka waaweyn madaxdii isu yimaadaan la isu wada yimaado dabeetana madax cusub la doorto dee waxaanu soo arkayaa inuu waaxid min almurashixiin alkibaar inuu ka mid yahay oo dee Genghis Khanna waa wowgii rumade ninkii meesha baa asaas dib uu laabtay mu'ahilaadkaasoo dhan isagoo wata mantaqa sharqi al-awsadna waa ninkaasi gacanta ku haya dhexda laakiin markuu sii socdo oo aanu meeshii gaadhin ayaa waxaa loo sheegay in dawladdii isu tagtay madaxweyne cusub la doortay Qopalay ninkii la odhan jiray walaalayiin isaga in loo doortay inuu noqdo maxay boqorka waddankii Mongolia ama Tataarku ay ka talin jireen inuu boqorka loo doortay isagii markaa muxuu samaynayaa meel dhexna wuu marayaa dib uu isaga noqday
caasimad cusub wuxuu ka dhigtay magaaladan Tabriz la yidhaahdo. Tabriz waa Tbilis meeshan iminka la yidhahdo waxay ku taallaa Iran. halkaas buu degay oo uu ka dhigay waa meel bartamo u ah dowladdii ballaadhnayd ee uu ka telinayay inuu meeshiisa madaxtooyada ay u ahaato. wuxuu ka taliyaa markaa dowladda tan ama isagoo aqaalim ka soo bilaabma Khawarizm ilaa Yashab. Khawarizm waa magacyadii qadiimka waxaa laga yaabaa inaydin imika garanay. waa Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan iyo Afghanistan, Pakistan, Persia, Azerbaijan, Ciraaq, Turkiya, Sham. intaasuu xukumaa hadda Holaako isagu intaa mandaqada ah. Kazakhstan laga soo bilaabo ilaa iyo Suuriya, Turkiya inta ka dhexle ayuu isagu xukumaa. Holaako markaa dib uguma soo noqonin Dimashq, waayo waxaa iska macruufo warkiina dee kollay soo gaadh ninkii u hanjabayay Naasir Yuusufna inuu cararay, magaaladiina dee furaheedii la keenay. dagaal xoogganoo uu soo dhaqaaqaa meesha ma yaallo, meeshaasuu iska joogay isagu. Katabqa ninka la yidhaahdo oo wata ciidamadiisii ayaa soo galay magaalada Dimashq, isla markaana warqad ka helay Holaako sheegaysa Naasir Yuusuf ninkii la odhan jiray meel kasta ha jiree soo qaadoo ii keen. waa ninkii cararay in la soo qabto. Dimashq markay soo galeen ee furayaashii loo dhiibay caasimatu Dimashq, caasimaddii muslimiinta ee dowla Umawiya oo ka mid ah magaalooyinka dunida ugu waaweyn, oo ka mid ah meeshay muslimiintii saxaabadu ka talin jireen, dhulkay saxaabadu furteen ah, ayaa waxay ku dhacday gacantii nimankaasi. waa markii koowaad taariikhda laga soo bilaabo 14 hijriyada markay muslimiintu qabsadeen oo Dimashq ay soo galaan 3 nin oo madaxa oo kristana oo dowlado ajnabiya madaxu ah. waxaa soo galay markaasi ciidankii nimankaasi oo uu hogaaminayo Katabqa oo nin kristana ah, oo uu hogaaminayo boqorkii Armenia, oo uu hogaaminayo boqorkii Antakiya. 3 nin Bohmand iyo Haytham iyo Katabqa ayaa magaalada soo galay. waa wakhtigaasi ku dhadhow baynu odhan karnaa 600 iyo kontoneeyada sannadood sidii Hiraqalis iyo kooxdiisii muslimiinta uga saartay. waa markii labaad ay Dimashq dib ugu dhacdo gacanta nimanka kan. waana runtii wakhti qiyaasi ah in Dimashq iyo Baqhdaadba 2 sano gudahood ay dumaan, waayo waa safar dabayaaqadeedii wakhtiga Dimashq la qabsanaya sanadkii 58. waxa ay sameeyeen marka Dimashq waa magaalo dad badan ay degan yahay, qalcado waaweyn leh, mustawaa maciishiga uu koreeyo. markay gacanta ku dhigeen magaalada tan waxaa madax looga dhigay nin la yidhaahdo Ibn Sayyan. balaan Ibnu Kathiir akhriyo waxa uu ka qoray masalada tan. Ibnu Kathiir wuxuu leeyahay Ibn Sayyan ninka la yidhaahdo buu yidhi allaha nacdale ayaa wuxuu la kulmay kiniisadihii ku yaallay Dimashq nimankii madaxda ka ahaa, dabeetana wuu weyneeyey oo kanaa'istoodii buu soo booqday oo wuxuu siiyey xoog. waxaanu ka dhigay daa'ifadii nasaarada ahayd ee markaa ku la noolayd muslimiinta inay ku biiraan safka Holaako iyo ciidamada tan. koox ka midana waxaa loo dirayba Tabriz iyo wufuud inay ugu tagaan boqorkii Holaako iyagoo barakaynaya oo hadiyada sida. waxay ka soo galeen buu yidhi magaalada Dimashq albaabka Toma la yidhaahdo, iyadoo saliibka kor loo sido oo dadka madaxyadiisa oo dhan kor looga qaaday, oo ay dhawaaqayaan oo leeyihiin dahara diinu lmasiix, dahara addiinu asaxiix. diinu lmasiix baa Dimashq laga dhex leeyay. waxaa kor noqday diintii saxa ahayd
diintii masiixiyadda kor noqoday waxay soo galeen iyagoo caayaya markaa islaamka iyo ahalkiisa iyagoo wada weelal waaweyn oo khamri lagu sido oo albaabada masaajidda buu leeyahay khamri ku rushaynayaan oo meelaha dadka muslimiinta ay joogaan inta la yimaado khamri wejiga lagaga saydhsaydaayo dharka si loo nijaaseeyo salaadda aanay u asixin waxay fareen buu leeyahay kullu man yajtaasuuna bihi fi al-aziqati walaswaaq an yaquuma lisaliibihim waddooyinka iyo dhulka la soo maro o dhan mar haddii lala soo maro calaamadda kiristanka in dadka muslimiinta oo dhamme ay isu taagaan kadibna meel yaroo deka ah oo dukaan nin muslimi uu leeyahay inta dukaanka la istaagay dekadiisii dukaan nin haysto dekadiisa inta la istaagay ayaa khudbad laga jeediyey lagu ammaanayo kroska aad loo ammaanayo diinta islaamkana aad loo ceebaynayo ibnu kathiir intuu ishayn waayey buu wuxuu leeyahy fa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun isagoo weli warka sii wadaba wuxuu leeyahy waxay soo galeen masaajidkii weynaa ee dimashq ku yaallay masjidulumawiyiin bay gudihiisa soo galeen iyagoo khamri sida oo khamri masaajidka la soo galay dabeetana qaadiyadii muslimiinta iyo nimankii fuqahada ee masaajidka joogay iyo dadkii meesha xaadirsanaay oo cadhaysan ayaa qalcaddii magaalada ku cararay oo ninkii madaxda ebel sayaan la odhan jiray oo zaciim tataara weeyaan ayay qabteen iyagoo raba inay ka ashtakoodaan daa'ifadan kiristankii waxay ku samaynayso isna wadaadadii u yimiyo intii wuu dulleeyey oo dabeetana wuu soo eriyey warkaa nasaaradaa saxee baxa buu ku yidhi ibnu kathiir haddana wuxuu leeyay fa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun dimashq waxay noqotay in ciidanka tataarkuna ka taliyaan daa'ifada kiristankuna ku amarku taaglayso ee meesha joogta maadaama ninka ciidanka watoo dhammi uu isaguba yahay katabqa nin masiixiya uu yahay waxaanay daa'ifadani matalayaan iyagu waa dad muslimiinta la deganaa meeshana degi jiray garanayana khabaayaadka iyo meelaha muslimiinta wax ugu qarsoon yihiin oo dhan katabqa markuu dimashq iswada raaciyey wixii la laynayey wixii la boobayey wixii la dhacayeyba ayuu wuxuu bilaabay inuu falastiin u dhaqaajiyo dabeetana falastiin magaalada nablus la yidhaahdo u qabsaday horaa loo sii socday ghaza ayaa la gaadhay ghaza markaa masar sinaa 35 kilomitir baa loo jiraa caalamulislaami markaa wax dowlada oo dagaalami kara masar baa ka hadhay masar xagga shishe waxaa ka sii xiga waa wakhtigii ay dowla almuwaxidiin baaba'dayana oo laga soo saaray andalus oo dhexdooda ay ishayaan oo gobollada yar ee north africa ku yaalla dowlat almarin iyo dowlado yaryar ay u kala googo'een iyana xaggaa xoog ma jiro jaaniska qudha muslimiinta u hadhay markaa waxa weeyaan ama aan odhan karo xawla alcaalamba one jaanis baa hadhay say taarikhyaano badani qiraan inay dunidoo dhan dowladdaasi tataarkii ka taliso hal dhagax baa hor yaalla oo ah masar waa meel kataafa sukaaniya ballaadhani ka jirto waa meel saxwa islaamiya ballaadhani ka jirto culamo badanoo muslimiini marka kan degan tahay waa meel dowlad islaamiya oo cusubi ay ka jirto dowlad aan boqortooyooyinka naaxnaaxay ahayne dowlad militariya inqilaabku wax ku qabsatay oo dowladdii koowaad ee casaakira ay meesha ka talinayso dowlad casaakira ka jirta dowladdii nimankii la odhan jiray na waxay marayaan falastiin ghaza bay soo gaadheen katabqa wuxuu ku dhaqmay dhaqankii uu ku dhaqmi jiray ninkii odayga ahaa ee la odhan jiray holako oo ah imaarado yararoo badan oo kiristana meeshan ku yaallay midna waxuma geysanin wuu wada dhinac maray lebnaan iyo suuriya qaybo ka mida iyo tuulooyin yaryar falastiin qaybo ka mida oo ay lagu qabsaday dagaaladii crusadeska oo imaarado reer yuruba ka jira kuwii oo dhan wuu iska dhinac maray waxna dhiba uma geysanin laakiin daris buu siiyey ah
mahma ay dawlado yarar sheeganayaan inay taabici dawladda weyn u yihiin saa daraaddeed amar isaga ka yimaado mooyaane inaan wax kale lagu dhaqmi karin dariskan laakiin qaar baan fahmin boqorkii magaalada sayda la yidhaahda ka talinayay julian ninkii la odhan jiray oo sayda ka talinayay ayaa wuxuu arkay in tataarkii dee caalamul islaam oo dhan qabsadeen dabeetana wuxuu is yidhi dawladda aadna yaro ballaadhso wataa dee muslimiinta ay jabeene albaqaac meeshan la yidhaahdo ee ku taalla lebnaan intaasoo muslimiina haysato ayuu is yidhi ka gaadhsiiyo aadna intaa ku darso katabqa baa loo sheegay boqor yaroo kristan inuu duulimaad sii wado meel halkaasiya farriin buu u diray uu leeyahay ma dhici karta inaad duusho laakiin wuu isdhega adkeeyo duulimaadkiibuu qaado intii yarayd buu ku soo darsaday katabqa isagana amar buu bixiyey in cagta la mariyo julian iyo saydabana cagtaa la mariyey waxaa dhacday isagana yoxana thani mid la yidhaahdo oo bayruut markaa isna xukumo kristana ayaa isna is yidhi wallahi wataa muslimiinta laga takhallusaye mantiqatuljabal adna ku darso oo bahasha yaro ballaadhe isna war buu u diray uu leeyahay arrinta joojiya wuu yaro dhaga adaygay isagana cagtaa la mariyo waa lagu daray dawladdan warkeedu soo noqonayn baa meesha taalla ama kristan haw ama muslim hawe aanada amar yeelan karin inaad taabic noqoto mooyaane inaad daba socoto mooyaane alqutb alwaaxid waxaa soo baxday dunidoo dhan in hal dawladi ka taliso oo waa dawladdaa qaadatay go'aanka ah xataa daa'ifada kiristanka ee kaatoliga wadaadkeeda inay ka dhigto inuu noqdo maxay wadaad orthodox ah inuu orthodox ka taliyo waxay u arkayaan markaa yurub kiristankii joogay ee barigoo dhan wuu qabsaday waa masale aada u fudud markaa caalamulislaami oo la moodayo inuu aada u xoog badan yahay siiba mantiqadii dawla alayuubiya ka talinaysay iyo mantiqadii dawla alcabaasiya ka talinaysay labadabana 2 sano dagaal soconayay ku qaadatay inuu kaga takhalluso hadda waxaa hadhay oo qura waa masar xoog tiro badan oo islaamiya yaalla waa mantiqo dadka degan ay aada u tiro badan yihiin waa mowqac istaraatiijiya waa cidda qura ee aynu leenahay way hor taagnaan kartaa dawladda tan waa meel kahaafo sukaaniya leh waa meel saxwo islaamiya ka jirto laakiin masar lafteeda markan iyana azimaad kala haysta asma siyaasiya baa haysata oo niman mamaalik la yidhaahdaa xukuma mamaaligtu waa niman markii hore addoonnimo waddanka lagu keenay milatari laga dhigtay dabeetana aan casabo qabiileed iyo reer ay ku tiirsan yihiin iyo mantiqadda ka tirsanayn askara baa haysata marka asma siyaasiya sharcinimadooda ah baa taagan asmo dhaqaaleed baa taagan wakhtiga kan oo dagaaladii crusadesku dhankan bay kaga socdeen hadday ka soo baxeen dagaaladii crusadeska kii tataarkuna dacalku u soo saaran yahay waxaa haysata asmo dhaqaale asma caskariya haysata oo markay meesha qabsadeen askartii qabsatay dhexdeeda iskhilaaftay marka ninkii meesha loo dhiibay hore waa la dilay kii ku xigay waa la dilay kii ugu xooga badnaa waa kan baxsaday oo u cararay dimashq mucziya koox la yidhaahdo mamaalik albaxriya baa xoog badnaa mamaalik almacziya niman la yidhaahdo ayaa markaa meesha haysta oo qitis nin la yidhahda uu xukumo qitis ninkan meesha xukuma waxaa abti u ah ninkii sindi la eryayay aynu soo sheegnay dhashiisii iyo carruurtii la qabsaday buu ka mid ahaa dabeetana addoonnimada tataarku ay u soo iibiyeen qoyskii boqortooyada ee ka talin jiray khawaarzam ayuu ka tirsanaa addoonnimaa loo soo iibsaday dee ilaahay unbaa dunidan iska lehe ninkii boqortooyadoodii la baabi'iyey ee addoonka noqday hadda waa madaxda muslimiinta ugu sarraysa haddana isagoo addoonnimo ka soo bilaabay buu wuxuu haystaa masar buu markaa kan ka talinaya qitis baa la yidhaahdaa qadiyadda tani markaa waxay u baahan tahay meel dambe iyo war dambeoo ballaadhan waayo waa macrakada dunida ugu caansan baan odhan karnaa ee jebisay aqwa dawla fi lcaalam ayaa soo socota macrakatu cayni jaaluut waa dagaalkii
ugu weynaa yurub oo dhammi way iska kicin kari weyday tataarkii muslimiinta intii kaloo dhan waa la soo jidho waa la iska kicin kari waayey waa aakhar qalca fi lcaalam bay yidhaahdaan dagaalkaa ugu dambeeya hadday dunidu ku jabto waxa weeyaan dunida in tataar ka talin karo laakiin biidni illaahi tacaala wixii ka dambeeya waxaynu dib u bilaabi doonnaa dunidoo tataarka dib looga safaynayo iyo dowladda masar oo markaa ku guulaysatay inay dib u riixdo ninkii naasir yuusuf lo odhan jiree baxsadayna ee dimashaq ka cararayna firdhadkii falastiin buu galay uu ka sii firdhaday urdun buu galay saxaaraha urdun buu ku dhuundhuuntay boqorkii hoolaakaa amar ku soo bixiyay in la soo qabto wuxuu dhuumashada ku jiraba meel saxaaraha urdun ka mida baa laga soo qabtay isaga iyo koox uu dhalay iyo wax la socday hoolaaka iyo dhankiisii baa loo diray laba shayba waa la sheegay inuu ku dhintay qola waxay yidhahdaan hoolaakaa dilay qaarna waxay yidhahdaan maahee dib maadaama uu iska ahaa qof uu wadwadan karo dib buu ugu soo amaamudo wuxuu yidhi xalab iyo dimashq iyo meeshii baan kugu wareejinayaa isagoo boqortooyadii dib loogu soo wado ayay dhacday waqcaddii caynu jaaluut ee tataarka lagu soo jebiyey firdhadkii tataarka oo caymada meel dhexa ka helay baa la yidhi kuwii baa kusii cadha burburay isagoona madaxa ka sii jaray wallahu aclam billahi towfiiq